السلام عليكم دمانتين والد السلام ميل كستا ay joogtaan Liverpool waxba laga ma qaban karo waxay 6 gool ka saddex ku soo garaaday kooxda Tottenham taasoo guriga Tottenham marti ku ahayd Liverpool sanadan meel ay u socotaa waxba laga ma qaban karo sababtoo ah championka hoggaanka ayada hayda sidoo kale Premier League-na 39 dhibcood ay ku hayda hadaba reer Liverpool hambaliyo kulankan waxa saad loo amaanay Mohamed Salah kaas oo laba goolna dhaliyay laba goolna caawiyay kani Afrikaanka ugu fiicnaa ee soo mara kubadda cagta hadaba Liverpool waxay ku soo adkaatay 6 gool taas oo ka farxinaysa mushaaciqiinta Liverpool Chelsea ayadu way kuftay Liverpool laakiin way ka faa'iideysatay 39 dhibcood ayayna sidaas ku leedahay week fasaxana sidaas ayay ku aadaysaa mar kale hambaliyo reer Liverpool Mohamed Salah 32 gool ayuu ku lug leeyahay season-kan cusub waxba laga ma qaban karo sanadkiisa ugu fiicnaa ayuu ku jiraa walow heshiiska loo kordhin hase ahaatee waxa la rajeynaa in loo kordhin doono 2 sano hadii loo kordhiyo waxbal hadii uu ku dadaalo waxa uu noqon doonaa kii ugu fiicnaa ee Premier League soo maray hadaba Liverpool bilowga ciyaarta 23 daqiiqo u horeeyay Diaz ayaa dhaliyay sidoo kale Mark Alisson ayaa dhaliyay walow Madison gool keenay hase ahaatee Szoboszlai isla haftamka hore ayuu ugu daray Salah ayaa kadibna 2 gool oo kale raacsaday sidoo kale haddana waxa dhaliyay Diaz 6 gool sidaas ayay ugu adkaatay hambaliyo reer Liverpool dhamaantiin ma maasantiin muuqaalkan haduu soo gaaray waxa ka codsanayaa inaad ku soo biirto kamid noqoto baaweynta aan halka ku saaxiibnay ee Billy Show